بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Gaabiyoome waxaan gudoomiyaha degmada Ruqsi halkan maanta aan ka soo hadlayaa ee aan kula kulmay qolada wariyaasha waa Burco in dadka aan kaga imi oo runtii deegaanka degmada Ruqsiya oo dhimashada imka ay ku soo korodhay oo tarab maalinta u dhimanaya kuwii u dambeeyay ilaa shalay ay dhinteen oo nin saaxiib ciyaal ah ahaa oo isagii caruurtiisa dirqi lagu gaaray caruurtiina oo biyo lagu qabtay iyo nafaqo aan oran karo waa xaalad haddaan imka aan afraad soo socota aan loo sugin wax oo oran karo sida xoolaha ayaa meedkooda u daatay shantii qof ee u dambeeyay imka afartii casho u dambeeyay ayay dhinteen ninkaas shan caruur buu lahaa biyo u doon buu isiri markuu laba meel ka soo socday buu dhaxda ku dhacay biyo la'aan buu dhintay kuwa kale dhimanayna waa cayn waxay kalifi waa war dhaba oo maanta jira oo aan leeyahay xukuumad ahaan hay'ad ahaan wixii islaam wax bixinaya jaaliyada ahaan wixii islaam wax haysta dadka aan ka nimi runtii waxaan qabaa maanta hadaan degdeg gurmad loo siinin inaan dadka sida xoolaha ay u dhimanayaan oo ay u maran doonaan hadaan degdeg loo siin waxaan aad iyo aad hawada u marinaya ama aan ku boorinaya xukuumadda inay si gaar ah iyadu maadaama mas'uuliyaddu inaga ay saaran tahay in dadka loo soo gaaro oo aan waxba gacanta ku hayn waxa la waxay gacanta ku hayaan aanay jirin haddii la soo xarinayo haddii halkooda wax loogu qabanayo dadkaas oo aan laba qaybood qayb Soomaaliland ma koo deganeed iyo qayb Soomaaliland oo hawdka sare deganeed oo xukuumadooda iyo dadkooda inay soo garabsadaan ama ay u baahi yimaadaan u soo guuray oo meesha u soo degay labada qaybood bay isugu jiraan arrinkooduna waa caynka aan